laysu soo dhacayay waxa miiska wada hadalka ee midnimo qaran la soo saaray qaybtii 12aad ee silsiladii milgeeyay Ismaandha waa markii ugu horeysay ee ay silsiladan ka qayb qaataan hablaha abuur kale ee Soomaaliyeed dhaantadani waxay ka soo maaxatay abwaanada murtida culus ee Xaali Dheeman oo difaac adag u gashay xawaleydii ay jinsiyadda wadaagayeen Xaali oo Ogaan Cismaan Jagnaato oo isugu jawaabtay ayaa tiri ma lafsiga cuntada ee ku mahmaahaysana ma sarreeyda dumar ma malaa'igba sooma muhanayaan ma fac goortay arkaan qaybtan 12aad waxa codkeedii macaan nagu soo tabinaysa fanaanada luuqdeeda la isku raacay ee Xaliima Hilaac oo gaafoota iyo tiimkii rag ahaaba xambaaraysay laxanku waa wartooti muusigu waa Maxamed Yare waana soo saaristii midnimo qaran filmis iyo Cabdi Hargeyso idin leh safsaf baa la kala yahay sinayeenaanu kala tagin سنتين معني عن رضو ما ملكيدا لي ماما ساير هبلو ما تكاغلو مي انت بيدا بهبلادكو مشغول سنتين معني عن رضو ما ملكيدا لي ماما ساير هبلو ما تكاغلو مي قد كانت ميستي معي رغو كما داد واللي ما رهكني لي مسري انتاكو مشغول سن قد كانت ميستي معي رغو كما داد واللي ما رهكني لي ملبسيغا عمتادايدكو مهما هيسانا كفيرسو ما سريدا دومر ما ملايق با كفيرسو سوما موهانايان نفع قورتيركان ملبسيغا عمتادايدكو مهما هيسانا كفيرسو ما سريدا دومر ما ملايق با كفيرسو سوما موهانايان نفع قورتيركان لمورن كو مشغول ترى ما شقاما رديدا يا دنيدا لمر انت ماري لهيد ما وحكا لمودن إنا دومر لمورن كو مشغول ترى درتي ما قفيو قلك ما قصادي أدوني معي ويدي والي سيدي وما قيامك توضى بيحين
dardartii ma gafiyo gala ma qusade adoon